soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigreyga oo ay ka socdaan dabaaldegyo waaweyn oo ay dhigayaan shacabka gobolka Tigreyga ee dalka Ethiopia kuwaas oo ay ku soo dhaweynayaan kumanaan ka tirsan jabhadda TPLF iyo maleeshiyada la socda. Kumanaan ka tirsan shacabka dalka Ethiopia ee gaar ahaan gobolka Tigreyga ayaa sacaba iyo sawaxan iyo buuq kadib markii ay soo galeen magaalada madaxda gobolkaasi Tigreyga ee Maqale oo ay qabsadeen jabhadda TPLF garabta. Wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in kumanaan ka tirsan ciidamada jabhadda TPLF iyo maleeshiyada la socda ay qabsadeen inta badan gobolka Tigreyga gaar ahaan magaalada madaxda gobolkaasi ee Maqale iyaga oo rasaas iyo dabaaldeg weyn ridayay garabta ilaa caawa. Kumanaan ka tirsan shacabka TPLF ee waqooyiga dalkaasi Ethiopia ayaa waxa ay dhigayeen durbaamo ayay tumayeen iyaga oo baabuurta ku soo wareegayay magaalada madaxda gobolkaasi Tigreyga ee Maqale. Kumanaan wax iska caabina oo ka tirsan jabhadda TPLF ayaa xabada kor u ridayay magaalada Maqale ee caasimadda gobolkaasi Tigreyga ee dalkaasi Ethiopia kadib markii ay iskaga baxeen ciidamadii Ethiopia ee halkaasi ku sugnaa. Boqolaal ka tirsan shacabkaasi ayaa waxa ay gaaf wareegayeen magaalada iyaga oo tumayay sacab iyo durbaamo ay ku soo dhaweynayaan iyaga oo ciidamaduna ay rasaas korsadeen. Inta badan gobolka Tigreyga ayaa waxaa qabsaday jabhadda TPLF kadib dagaalo qadhaadh oo ay la gashay ciidamada dalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea. Ciidamadii Eritrea markii ay iskaga baxeen magaalada gobolkaasi Tigreyga ayaa waxa ay jabhaddu dhirbaaxasho weyn ku dhigtay ciidamadii Ethiopia iyaga oo lagu qiyaasay 4,200 ay jabhaddu qabsatay sida muuqaalkan uu muujinayo. Jabhadda TPLF ayaa waxaa la sheegayaa in ay halkaasi caawa dabaaldegyo ka dhigayaan iyada oo shacabka dalkaasi ku dhaqan gobolkaasi Tigreyga gaar ahaan caasimadda Maqale iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi iyaguna ay dhigayaan dabaaldegyo ay ku soo dhaweynayaan iyagoo rasaas kor ridaya. Maamulkii ku-meel gaarka ah ee Abiy Ahmed uu magacaabay dalka Ethiopia gaar ahaan gobolkaasi Tigreyga ayaa waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Ciidamadii Ethiopia ayaa ka soo heleelay gobolkaasi Tigreyga kadib markii maalmihii ugu dambeeyay dagaalo qadhaadh ay la galeen iyaga oo khasaare xoog leh uu ka soo gaaray sida la sheegayo. Jabhadda TPLF madaxdooda ayaa la sheegayaa hadda inay wadaan abaabul ay saxaafadda ugu soo bandhigayaan inay qabsadeen gobolada ugu badan ee gobolkaasi Tigreyga iyaga oo la sheegaya in ay berri ilaa caawa ay qaban doonaan shirar ama saxaafadda isku yeeri doonaan. Dowladaha reer galbeedka ugu horeeya Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa waxa ay cunaqabatayn ku soo rogeen Abiy Ahmed waxayna cadaadis ku saareen inuu ka baxo gobolkaasi Tigreyga. Doorashadii ka dhacday dhawaan dalka Ethiopia oo lagu waday 5 maalmood gudahood in la shaaciyo ayaa waxay dowladda dalkaasi Ethiopia wali aysan shaacin muddo 7 cisho iyaga oo Mareykankuna uu ku tilmaamay doorashada ka dhacday dalka Ethiopia inaysan waxba soo kordhinaynin. Wararku intaas waxay ku darayaan in jabhadda TPLF laga yaabo inay dagaalka sii wado oo ay qabsato magaalooyin kale oo ka baxsan gobolkaasi Tigreyga ee dalka Ethiopia laakiin afayeen u hadlay ciidamada militariga dalka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay inay qaadanayaan xabad joojintii ay dowladdu ku dhawaaqday. Abiy Ahmed ayaa bishii November ee sanadkii 2020 weerar ku qaaday gobolkaasi Tigreyga kadib howlgal uu ugu magacdaray shareynta sharciga. Dadka siyaasadda faleeqaya ayaa la sheegayaa in Abiy Ahmed dagaalkaasi uu laga awood roonaaday iyaga oo mid siyaasadeed iyo mid military ahaanba laga awood roonaaday si la sheegayo. Hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooda ayaa waxay ku eedeeyeen dowladda dalka Ethiopia oo ugu horeeyay ra'iisul dalkaasi Abiy Ahmed in uu dad badan oo waxba galabsan ku xasuuqay. Doorashadii halkaasi ka dhacdayna waxay Mareykanka uu ku tilmaamay mid uu isku cumaamaday oo isku calaamad saaray ra'iisul dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed.